waxaa helaysaa $400 4 saac gudahood. Iskaamow maxaa tahay qofka in la bisleeyaa zoonka ugu jira laga bixiyaa zoonka la geeyaa. Sidee naftaada uga difaaci kartaa iskaam risk? Fursadaha internetka uga faa'iideysan kartaa. Markii aan leenahay naftaada hantidan meesha taala oo ku taala akoonka kugu jirta ama kiribtaha kugu jirto yaa shaqeeyay nafta shaqeys. Marka ugu horeyn iskaam risk waxay weerar ku yihiin waa nafsadaada. kadibna waxay weerar ku yihiin hantidaada. Waxa wax soo saara ama dhibaatadu gaarayso waa nafta. Marka ugu horeyn naftaada uga difaaci kartaa iskaam risk. Fursadaha yaal internetka uga faa'iideysan kartaa. Ciwaankaas ayaa la fuguri doonaa. ujeedada marka seminaarka hadaan fiirino waa muhiimadda markii laga hadlaayo online safety-ga muhiimadiisa. Qofka ka shaqeysanaya online-ka waxaa muhiim ah in uu diiradda saaro safety-ga qodobka koowaad kaas ah. Marka wax raadinaysa maxaa laga rabaa? Koow horta bal aduu safe mat kadib wixii wax ka raadi. Second waxaan xoog saari doonaa sarukaca ay sameynayaan iskaam risk oo zaid ka noqday ayaan wax ku sameey doonaa asdul istaagi doonaa. asla fahamna marka horta fahamka iskaamka hadaan fahamno ugu horeyn waa maxay iskaam horta? iskaamow maxaa tahay? iskaamku waxa waaye in lagu qinay baaqi sheegay lagu qiyaano in lagu sameeyo qiyaano si guud iskaamka maxaa lagu qiyaanaa marka? tusaale waxaa lagu yiri haddaad $100 meeshan dhigatid waxaa helaysaa $400 4 saac gudahood. waa qiyaano. qofku ma isweydiinayo nin suuragal miya macquul miya ma isweydiinayo kaliya muxuu sameynaa qaram iyago 400 oo muuqato warni haddii 4 saac $100 400 ku sameeyay yaa shaqay lahaaba xataa qof ma isdhahay mut. qofka marka waa la qiyaanay koow maskaxiisa la qiyaanay labo lacagtiisa la qiyaanay oo waxa laga dhaadhiciyay waxaan suuragal ahayn oo aqal ahayn ayaa la dhaadhiciyay. marka si guud iskaamku waxa waaye qiyaano qofka lagu sameeyo. qodobka labaad sida u shaqeeya iskaamka. horta iskaamka inta uusan jeebka soo gaarin falsafada isticmaalaha waxa waaye inay horta adiga ku qarqiyaan. sababtoo qof caadi ah oo normal ah lama gaadi karo. qofka in la bisleeyaa zoonka ugu jira laga bixiyaa zoonka la geeyaa. tusaale saaxiibkaaga ama saaxiibtaada kuugu dhow ayaa lagu soo maraa. qof aad taqaanid oo dugsi quraankii iskuulkii jaamacaddii shaqada isla joogtaan ma ka shaqeynay waa may asaga lagu soo maraaba. waxaa lagu leeyahay warniyo hebel xaaladda ka horan ayaantan waxa waaye meeshan laga cadiiminayaa maxaa kugu dhacnayo barnaamijkan ka horan ma maqashay ma maqleen in sharax saaxiibo cadiintii iyo lacagtii soo qaada ninkan in sharax yaw baalkan waxa ku shubanaysaa $100 isbuuc kadib $200 la bixee qofku ma hubsanayo sax miya male qaram. sababtoo ah qofkii uu yaqaanay oo inta ka soo horjeeday ayaa barnaamijka u keenay. laakiin qof uu san aqoonin hadduu keen lahaa muxuu sameyn lahaa? uu yaraan asoo ka shakisan sababtoo qofka ma yaqaan qofkan waxa kuma qanci karo. qofka horta waxa waaye waa la qarqinaa soonka jira laga saaraa soonka la geynaa iimaanka qofka laga soo ridaa kadib laga qaadaa stepkaas maraan. qofka haddii uu fahmo sida u shaqeeyaan iskaamku inuu ka badbaado 90% aad iyo fudud. laakiin qofka lacag raadi oo ku socda xamal ma geenayo wax ka soo shaqeyso laga qaadana. sababtoo ah tricks ama qiyaanada isticmaalaya ma fahansana. qodobka saddexaad maxay dad badan dhibana ugu yihiin iskaam risk? dad badan maxay dhibana ugu yihiin
tusaale qofka wuxuu rabaa inuu soo galo suuqyada financial ama crypto ama forex soo galay wuxuu isleeyahay inuu lacag sameey waxa leeyahay niyow inaad suuqa aan leeskiisa baratid uma baahnid application yar soo baxay lacagta ku shubanay ayada shaqeeyada qofka maxaa laga soo celiyay waxa loo soo wiray inuu crypto lacag ka sameeyo ama forex uu lacag ka sameeyo inuu dhibaato rafaad u marayo laakiin meeshan wax shaqo la qabo jirin aan su'aal weydiiyay ma jirtaa lacag ay iska shaqeeyada inta meel la geliyo ma jirtaa maxay u baahan tahay in laga shaqeysiyo u baahan marka xarfaantan waxa uu weyn isticmaalaan waxa waaye qofkiina u sawiraan inuu shaqo qabaneen chief oo chaq ee dhaarey qoyu ama chief ak soo galay baash wax macquul ma ahan aqli galna ma ahan laakiin qofka markii uu yahay qof dareensan soonkii ku jira in laga saarayo oo soo laaba karaa ruux macquul ma ahan si macquul ku tahay ya su'aalu qofku keenay aan qofka markii la qarqariyo badweyn ku dhaco waxa ma sheegay hay la socdo hay'adda dad baataan jaabka baasha u socotaa marka qofka lacagta sameynaya waa inuu si miirqab ah oo dareenkiisa iyo maskaxdiisa iyo aqligiisa asagoo jooga waa inuu raadiyaa sidoo kale qofku inuu kala saari karaa maxaa sax maxaa qaldan haddii marka ujeedkaaga kaliya uu yahay lacag raadi xalalaha u fiirin iskaam miya ma aha miya lacag un raadi meel un lacag raadi dadtahay warar waa laakiin qofka miirka qaba oo ogsoon waxa uu raadinayo wax ka dheer yahay yimaadaan su'aalu ka keenaa tusaale qofku inuu crypto lacag ka sameeyo waxa ka horeeyay inuu barto waxa la yiraahdaa oo baahnid inaad baratid iskaamka hadda dalada ugu weyn isticmaalaan waa cryptoda lacagihii USDT-da stable coins-kii wax dhan waa soo galeen waagi hore lacagaha dollarka isticmaal jireen laakiin hadda cryptodii stable coins-kii coinanka caadiga ah blockchain-ka la isticmaalayaan runtii marka 2 sano iyo 3 sano ka hor sidee hayeen oo ka khatar badan maanta noocyada marka online scam-iska daan fiirno nooca kooda waxa ku soo galayaan investment maalgashi samee ku soo galayaan intee ka sameeyay cryptocurrency oo kale cryptodina ma ahan magaca ay wataan ayaa ah tusaale magaalada Nairobi waxaa jooga nin caan ah oo dadka dhaca oo Soomaali ah oo ugu sheekeeya $200 keenso 24 saac gudahood ee isku bedeleeda 600 bitcoin baa la gelinaa uu leeyahay 4 saac kadib lagu diraa lacag qofkii bitcoin baa lacag la gelinayaa lacagtii 4 saac waxay dhalaysaa 600 waxa soo fiirina marka waa diraa lacag taleefka la dinsana dhowr qofood oo sida ku dhacday ayaa arkay bitcoin waxa u malayaan shirkad lacag ka qabata oo hadii loo dhiibto lacag sameeyay ay u malayaanba ee wuxuu wax maaratay jira oo laga shaqeysto oo cilmi nidaam loo marinayo ma fahansana qodobka labaad oo lagu soo gambado waxa waaye waxa la yiraahdo phishing and email scams fariimaha maaratay yani marxabinta ah oo lagu soo diraayo emailada kale tusaale ahaan in lagu yiraahdo company hebel ama shakhsi hebel oo caan ah ayaa wuxuu bixinayaa dollar linkiga ku dhufo ama fariimo marxabina in lagu soo diro kale oo qodobada ugu weyn isticmaalaan qodobka saddexaad oo waxyaabaha loo yaqaano scholarship offers tusaale scholarship-ka aan naqaano ee dawladaha ama hay'aduhu bixiyaan waxa lacaga la isku xiro qofka requirements-ka laga rabo kaliya ayuu soo buuxinaa laakiin midkan markii aad formka dhamaysid waxa uu leeyahay si aad u hesho daaqad waxbarasho $20 bixi $10 bixi muhiimaddu waxa waaye marka
intaasoo milyan oo qofood ay waxay raadinaysaa deeq waxbarasho qof walba wuxuu isleeyahay ka faa'iideyso haddii marka 5 milyan oo kamid ay bixiyaan $10 meeqa noqonaya malaayiin baa soo baxaysa qofka wuxuu isleeyahay master 10,000 20,000 lagu dhiganayay miyaa ka xigta $10 bixi baash ujeedadu waxa weeye nimanka inay 5 milyan 10 milyan qof min $10 ka qaataan waxyaaba ku soo gabadaan ka mid ah qodobka nooxiga waxa waaye meesha ugu daran waaye meesha ugu daran waaye dhinaca social media messengerka luuqa ma soo diray wali farin jacayl been lagu jira meeshan waxa waaye waa meesha dadka u badan ka jabaan waliba waxyaaba ay sameeyaan waxa kamid ah oo Soomaali ku dhacday in messengerka dad loo soo galo luuqa fariimo jacayl loo jiray niman naaga iska dhigaya kadib video call ku waceen muuqaal ka duubteen rakaata lagu haystaaba muuqaal laga duubtay hal lahay waan ka haynaa hada soo dir weysaan telegram iska fiiri meesha ugu daran waa marka social media marka laga hadlaayo qaab yani romance jacayl rabitaan ayaa lagu jiraa wax kale kama rabaan muhiimadu waxa waaye in qalad ka dhacaan muuqaal laga duubto dibna aan noqoto dhow ma soo qarxina ma soo diray ana ka sal xogana in badan waxa waaye dad ay ku dhacdaba waxyaabaha marka ay soo maraan kamid qodobkan waa qodobka waxa waaye ugu daran oo ku xiga yani iska dhaadhicinta ama iska dhigida markii laga hadlaayo tusaale ahaan hay'ad market ayaa wax bixinaysa lacag oo maqashin Soomaaliya dhexe waxa lagu soo shar gareynaa baarkood saad shuruudaha ka mid ah u shar gareedka u diraa guleeyahay qofka soo ka dira ruuxa maxay war hay'ad ay lacag raadinaysa si lacag u bixinay ayna wasaaradda dhalinyarada wax bixinaysa 150,000 Soomaaliya ma lacaga 150,000 qofka xitaa raadinaya muxuu yahay dad waxay aqooneen 150,000 intay taa $1 ma yaqaanaan waxa lagu leeyahay hormuud ayaa wax bixinaysa iPhone yani muhiimadda laga leeyahay waxa waaye linkta waxaan ku isduugan qofka in laga xado xogtii in laga xado email ba meesha geliyay number ba meesha geliyay hadhow si fudud qofkan uu soo dhici karaa mobilkiisa laakiin qofkan ma ahan qof ku baraarugsan waxa ka dambeeya waxaan waxa u muuqata iPhone-ka lacagta ee u muuqata shirkadihii ama kambaniyada loogadoodii wuxuu aad u isticmaalayaan waliba Soomaalida iPhone-ka laga madax maray mood ku guulayso iPhone 15 mirba ma leh markaas miru ka tagay wuxuu ku soo baraaruga asoo la dhacay ama asoo xogta laga jabsaday qodobada marka waxa waaye waa in aad iska ilaalinaa digniinaha iyo calaamadaha la xiriiraan fiirino waxyaabaha lagu soo diraayo kale tusaale ahaan qodobkan oo kale unrealistic markii laga hadlaayo scamka waxyaabaha isticmaalaan si guud unrealistic profit promises yani faa'iido aan xayada ku salaysnayn in lagu ballan qaado tusaale in lagu yiraahdo $50 ayaa 4 saac dhalaysa $1,000 logic mata hada aqbasho ka war aqliga ku ciyaarta يعني wax kale ma sameeyaan aqliga dadka ku ciyaaraan scam hal su'aal weydii sidee ku dhalay balow ku qaba sababta jawaab ma hayo yana weydii kara qof meer qaba ayaa weydii kara laakiin qofkan waa hore la qaaday ma dhalay ka fiiri wax su'aal iyo wax mid jirto kunka daro noqdo qodobka labaad in lagu furo yani degdeg salahan ruuxa maxayeen ka bax fursad macnaha isha fahmo fear of missing out lagu sameeyna diiwaangelintu waxay marabtaa ilaacato ka dhamaanin soo dirsa hadda qofka macnaha degdeg lagu fura tactical marka ay isticmaalaan ay koobkat qofka in loo muujiyo in ay ka dhamaahaydo fursadan qodobkan marka
markii laga hadlayo xogaha xasaasiga ah tusaale ahaan dadka mobilada caadiga tuugada somnetka isticmaala dadka dhacaan dadka waayeelka oo kale dadka masaakiinta ah oo la caawiyo kale raadinayaan haye waxa la lambarka xaga gali waxyaabaha ugu weyn raadinaya waxa waaye waa OTP-ga one time password koodkaas dhacaya koodka gali haye inta xidig hebel riix haye lacagta loo yeeraa qof ma fahmaayo haye beenka gali ha lafta la balaarina qarrab lacagta oo wareegta waxyaabaha ugu weyn oo hadda maartay ka dhex socda wadanka ay ka mid qoladaas ay luskooda waxa waaye waa local qaab yani offline ah ay u shaqaysanayaan dadkii ku dhex jira marka qodobka u dambeeya waxa waaye linkiyo aan rasmi ahayn iyo website-yada maartay unofficial websites ko kale salahan website-ka marka booqatoo kale maalin waa offline maalin waa online mararka qaar waxaan wax jira maan ku leeyahay waa wax saacad loo guuray dada lagu kaatayha ama lagu dhaca waa la dumina abaarkii dal soo daara live laga soo dhigaa haddana waa la xiraa waxyaabaha soo dhamarka waxa waaye waxyaabaha isticmaalaan waaye tusaale website-da isticmaalaan oo kale oo dadku ku dhacaan mida maanta la keenaa waxa leeyahay 200 ku shubta isbuuc intaas u dhala markii dadka lagu guuro isagii oo version-kii ah laakiin magacii laga soo bedelay loogada bisa la keenaa bari kooxda la dhacdana mid kale adana la keenaa bari magacii iyo loogada bisa la bedelaa hada aad u fiirsan waa isku version waxdan marka baaritaan ku sameeyay wax weyn ma baahnaba in la dhiso waxaan waa wax saacado qaadaya caaw marku guuro hore laga sameeyaa mid kale team Nigeriana iyo team indhayar ah ayaa hawsha shirka ku ah lacagta u badan oo scamka adduunka looga dhacana Afrika ka dhacda adduunyada kale dadka lama dhici karo way ayaa meesha taagan hay'in waxaan maxay qabanayaan maxay u taagan yihiin kamana jawaabaan scamka waxaas shaqadooda maamba mar haddii way timaado meesha asiideeha sababtoo ah uma dhisan gareysna ama uma diyaarsana inuu dad qanciyo wuxuu dhisan gareysan yahay inuu dad dhaco saameynta marka scamka daan fiirino waxa uu horeeyaa financial loss in lacagtaada meesha ku lunto ama in jeebka gacanta geliya ugu dhaashale bari jeebka gacanta geli weyso oo hawlahaaga asaasiga qabso weyso tusaale lacag aad ku gadan kartid guri ama baabuur ama mooto bajaaj ku shaqaysid hada scam sida ka war marka tuugse lacagtaada bixiyay jaajkiisa bari arsuka daraaleed lacagtaadana cisha laga waay qofka marka waxa la rabaa inuu fakaro oo waxa meesha ku bixinayo iyo waxa soo laabay inuu yaqaano saameynta labaad ka dhalanaysa waxa waaye in la xado xogahaaga ama shakhsiyadaada wax la xiriir in la xado magacaaga numberkaaga emailkaaga waxaas meesha ma ka baxaan oo loo isticmaalo si aan habboonayn qodobka saddexaad waxa waaye in sumcadaada soo gaarto dhibaato sumcadaada maxaa ka mid ah fiidiyoga la isku duubaa ka mid ah dil soo qarxay ka war meesha waxa waa hawla ka dhacay yani naga inta lagu dhiibaa leeyahay masuuqa la daadisay mariyaas ka dhigtay waa lagu duubay waa soo dhigay wax yaar ma meeshaas yani qofka meesha u dambaysa waay noocaas way isticmaalaan qodobka marka u dambeeya waa qodobka u daran waay yani emotionally and psychologically in qofka dhibaato soo gaarto in qofka maartay dareemihiisa waxa uu dareemayo waliba psychologically aad u soo dhibaanto hadda ka soo qaad qofka marba qolada iskaam ku guureen tusaale forex oo kale ayaan baa waxa la yiri Soomahan qolanta timid waxay dhaheen forex ku shaqeeyaan lacag keen ilbaaba meesha laga furtay lacagtii umada ka qaateen way dhaceen maxay ku dhaceen magacii forex ku dhaceen forex waa suuq jira oo laga shaqeysto
oo u baahan in loo maro process laakiin raggan ayagoo magacii huwan ay dadka dhacaan qofkii liira ka waran marka niyo forex lacag ka sameey tilis ku dhacay Soomaaliha iyo dawlad sababta shay la garaafiyay magacaas marka shay walba oo lacag laga sameeyo wuxuu leeyahay process iyo wadiiqo loo maray uu leeyahay ee ma ahan wax inta meel lagu soo maaratay malakay leeyahay meeshaan wixii yaalana keena sida forex lagu sameeyo kale okay sidee marka naftaada u difaaci kartaa oo iska ilaalin kartaa scammers qodobada marka waxa waaye qodobada ugu muhiimsan waaye horta marka ugu horeysa waa inaad xoog saartaa wax loo yaqaan digital literacy aqoonta digitalka waa inaad xoog saartaa waa inaad baxthi fara badan ama baaritaano fara badan waa inaad samaysaa filli walba oo digital skills ka la xiriira ama digitalka la xiriira oo lacag laga sameeyo waa inaad baaritaan ku samaysaa waxa maxay yihiin sida lacag looga sameeyaa wadiiqada loo maraa maxaa laga baahan yahay waxaas oo dhan laga rabaa ee lacag laga sameeyaa dalaq ma aha shaygan lacag la sameeyo Soomaaliha sida loo sameeyaa lacagta horta maxaa loo maraa haddii aad taqaanid shaygan sida lacagta loo sameeyo waa ka sameyn kartaa laakiin ka waran wadada loo maraa dad heen ka waran iskaamka dhax ku fariisay wadada iskaamka aade dag kan uu leeyahay sababta wadada loo maraa ma taqaan shaygan waxa uu weyn oo qofku heli karana oo ka ilaali kara inuu wadada ka leexdo ama iskaam dhaxda u galo waa aqoon shaygan aqoon u leeyahay tusaale computer ana isticmaalo ma aqaanaba computerkaas waxa laaba Soomaa ilaa meesha ka soo gaaray taabana aqoon uma lihi software-da qalda wixii dhamaan qalda marka dambana waxa waaye waa soo gubina baab aqoon darana keenaysa marka shay walba aqoon la maro leeyahay qodobka labaad وانا استعماشا باسورد حوغن وانا لا استعماشا 12A تو فاكتور authentication على استعماشا markii OTP ga laga hadlayo si aan ma sid yani fudud loo jabsan وانا iska ilaalisaa qodobka saddexaad وانا iska xaqiijisaa linkiyada dhibaato ka timid linkiyada yaa arkay link ku qoran tahay halkan sawirka ku jira yaa arkay yaa la soo diray haye telegram ka meesha sorta anu ma furin waa ka baqay dadka linkiyada furmihi laakiin waxaan ogahay in dhibaato iga soo gaaray daan furo sababta lagu leeyahay halka sawirkaasi si aan u fur lahaa ama laga shaqeeyaha macnaha halkan sawirka ku jira waxa waaye fur waa baal sawirka yaa siiyay ani ma siinin qof kale ma siinin ima yaqaano hadaa fiirido waa cadaan wax soo diray sometimes qaar ardayda kama soo diraan asaga la soo diray ana soo diray ma yaqaan waa transmission waa gudbiye ma liibaan lagu liibaano waa loo soo dhiibay asoo soo gudbiyay umada sii fidnayha marka waa inaad iska ilaalisaan linkiyada tusaale qof waxa ku soo diray linki wuxuu ku soo diray WhatsApp-ka oo leeyahay hormuud waxay bixinaysaa $100 200 iPhone bixinay ku dhahay haska furin hormuud ma ila kuma bixido iPhone waxyaabaha yani la rabo in laga digtoonaada kamid website-yada kale website aan verified jira ha furin linkiyada ha furin iskaga carar dhibaato weyn baa ka imaanaysa waxa la yiraahdo malware spam meesha ku jira taleefankaaga gudaha loo galaa meel kasta la furaa warmays linkigaas oo taawatay dhibaatada ka imaanaysa qodobka u dambeeya waxa waaye waa inaad baaritaano samaysaa intaada investment sameyn saale scammerku muxuu kala hadlaa lacag muxuu kala hadlaa waxaan maalgeliyo ku leeyahay baaritaan ku samee wax jirmiya waxaan jirmiya baaritaan ku samee sidoo kale lacag hadirin adigoo waxaan baaritaan ku sameynin
ها العاقة اسكو ديرن مالقشها سمين فرها قادن ها waxal baa ka didin hadii lu yiraahdo waxaan caala sameeyaa xagga idhig seel lacag loo sameeyaa maxay yihiin yaa keena yaa wada iska baar ha okay qaybta marka waxa waaye waa qaybta ugu muhiimsan markii laga hadlaayo online-ka in laga faa'iideysto fursadaheeda marka يعني qaabka oo looga faa'iido waxyaabahan loo yaqaan legitimate marka laga hadlaayo online opportunity marka laga hadlaayo fursadihiisa aad u badan yahay laakiin qolada scamka meel yar luuqada ku fariisteen dadkii barwaaqadii iyo adduunyadii socotay laga qariyay luuqaas dadku guraan waxyaabaha marka ugu horeeya oo dooga faa'iideysta internet waxa kamid ah freelancing freelancing waa maxay xirfad baa baratay ina qaab yani freelance ah oo adigu xor u tahay inaad ku shaqeysto inaad shakhsiyaad kula shaqeeysid inaad shirkad kula shaqeysid oo ku furanta saacado kooban ayaa kula shaqeyn kartaa mid walba sidoo kale waxaa ku furan remote jobs salahan remote jobs waxa waaye waa shaqooyinka ka fog tusaale wadan oo kale ama shaqo aad tageen oo kale laakiin guriga ka shaqeynaysid remote-ka Soomaalidu aad ma fahansana adigoo maqsad jooga aad shaqada America joogto la shaqeysan kartaa data graphic designer video editor script writer waxa soo dhan adoo ah qodobka labaad waxa waaye inaad ku shaqeysto e-commerce business ganacsiga online kana ku shaqeysto inaad wadanka dibadiisa alaab keentid adoo online ku sii iibisid delivery u sameeysid oo ku shaqeysan kartaa qodobka saddexaad waxa waaye digital skills hadii aad leedahay digital skills-ka xirfadaha tusaale editor baa tahay video editor baa tahay waxa tahay graphic designer social media marketer hadda la ku shaqeysan kartaa xirfad laad ha kaliya horumarin ku sameey ku shaqeyso iyo iska muddo ku fariisan qodobka ku xigay waxa waaye inaad sameysid online courses tusaale waxa ku fiican tahay graphic design ka sameey course ka sameey website sameyso soo gali video editor baa tahay sameyso soo gali waxa ku fiican tahay business-ka iyo sida loo hadlo waxashara ka duubo soo gali ka gado lacag ka sameey qodobka ku xigay waxa waaye content creation يعني qofku inuu noqdo qof wax abuura ama muuqaal abuuro kale noqdo ayta marka monetization waxa waaye markii lagu soo daayo maartay isaga lacag ka sameynto kale ayadana waa ku furanta qodobka u dambeeya waxa waaye financial marketing suuqyada financialka sida stock-ga crypto-da forex oo kale lacag ka sameyn kartaa okay sida marka u kala saarayna scamka iyo fursadahaas oo ka jira qodobka waxa waaye inaad sameysid proper research sax ah waa inaad sameysaa waxaan aad galaysid waa inaad iska baartaa si sax ah u baartaa qodobka labaad waxa waaye waa inaad iska fiiridaa oo ku sameysaa review waxaan legitimacy sida uu yahay waxaan sax miya qodobadaas marka waa inaad iskaga fiirisaa qodobka labaad waxa waaye transparency waa inaad ka fiirisaa waxaan ma yihiin wax daah furan oo la isku halay karo ma yihiin oo bari wax laga ogaa karo ama xog laga ogaa karo ma yihiin qodobka ugu dambeeya waxa waaye inaad qiimeyso qataraha kaga imaan kara tusaale waxa lagu yiri shaygan lacag baad ka sameynaysaa lacagteeda ma way karaa wayna taagan tahay lacag soo sameynay teeda ma way karaa aan sameeyahay ha waxa walba faa'iido leh maxay leeyihiin khasaare leeyahay ganacsiga caadiga xitaa wax walba oo khasaare leh faa'iido leeyahay wax walba faa'iido leh khasaare leeyahay marka waa inaad yani laba dhinac ka fiirisaa xirfadaha muhiimka marka online safety ka caawi kara maxaa kamida inaan leedahay digital literacy
dijitaalka waana aqoon u leedahay waa fahansan tahay waxaa kaloo muhiim ah critical thinking hab fikirka qaabka u fikiraysid inuu yahay hab yani top ah oo waxa markii oo maaragtay aragtid fikradda ka haystid waa inaad bedeli kartaa qodobka ku xiga waxa waaye financial awareness dhaqaalaha marka laga hadlaayo waa inaad wacyi u leedahay dhaqaale ma yimid ahaa meeshii aad iska buubi lahayd oo emotional ku qaadi lahaa hawsha marka dhaqaale tahay waa halis wuxuu markayba lacag soo gashaba waa halis marka waa inaad leedahay wacyi dhaqaale waa ku wajahaysid dhacdada markaa taagan waa inaad leedahay qodobka labaad qodobka u dambeeya waxaa waaye inaad raadiso qof yani expert ah ee raadisid tusaale qof digital expert ah heshay warniyo waxaan maxay yihiin waxaan bal talayga sii waxaan bal talayga sii maxay yihiin waxaan qofka kaaga horeeyay shaqada ama qofka cilmigan kaaga horeeyay u tag warniyo waxaan rabaa inaan galo bal talayga sii ama wax iskaama lagu keenay warniyo arintaas ii soo bandhigay ka waran bal wala fiira u yaraan yani waxaan dadka kaaga horeeyay weydii fasalu ayada quraanka baan amraysada dadkii waxaan u horeeyay inaan weydiino okay markii laga hadlayo la talinta tusaale hadda anigu waxaan sameeyaa la talintaas aan sameeyo waxay la xiriirtaa suuqa kriptada la xiriirtaa dhalinyarada waa ku caawiya dhinaca digital skills ay soo faa'iideysan karaan markii laga hadlayo la talinta oo kale ganacsatada iyo bunuugta kale ama bangiyada kale iyo shakhsiyaadka caadiga oo kale waxaan kala taliyaa lacagooda soo maaray lahaayeen siday faa'iido ugu heli lahaayeen suuqa kriptada ayadoo loo marayo in portfolio la sameeyo portfolio rebalance la sameeyo iyo inaan la sameeyno take profit inaan la sameeyno sababtoo ninkan ganacsadaha ah lacag buu hayaa wuxuu u baahan yahay lacagtii wax la keer gareeyo ama la ilaaliyo u baahan yahay macnaheedu ma ahan lacagaan haystaa suuqan lacag u baahan yahay lacagaan keenaa lacagtaan tusaale $1 million suuqa keento aqoon uma lihid ta laga xabsado aduu siira laabane laakiin $1 ama $100 waa aqoon u leedahay millions iyo billions u bedeli kartaa waxaan waxa u baahan yahay risk management u baahan yahay qofku waxa la rabaa marka waxaan dadkii ugu horeeyay in wax ka weydiiyo waxaan maxay yihiin maxaa caqabado ka imaan kara hore u socon kartaa aad ma santihiin gabagabadaan soo gaarnay xadiis su'aalo ay jiraan jawaabo